shirkadda isgaarsiinta Telesom ayaa lacag qadarkeedu dhan tahay $50,000 ku deeqday dhismaha xarunta cusub ee lagu kordhiyo cusbitaalka guud ee magaalada Hargeysa isla markaasna loogu talagalay xaaladaha bukaanka gargaarka degdega ah waxaana munaasabada ay maanta sida wadajirka u dhagax dhigeen wasiirka caafimaadka Soomaaliland marwada madaxweynaha iyo waliba wasiirka maaliyadda oo iyaguna sidoo kale ay barbar socdeen mas'uuliyiinta shirkadda Telesom ayaa waxa goobtaasi ka hadlay madaxa suuqeynta iyo xiriirka dadweynaha u qaabilsan shirkadda Telesom Maxamed Ibrahim Darbo waxaanu kaga dhawaaqay goobtaasi qadarka lacagta ay ugu deeqeen dhismaha xaruntaasi sidoo kalena waxa uu ka dhawaajiyay adeegyada ay shirkadda Telesom ku deeqeen guud ahaanba cusbitaalka guud ee magaalada Hargeysa sadla socotaan shirkadda Telesom waa shirkad ka shaqeysata wadankan oo wadaniya wax fara badan dalkan way u qabatay maanta aynu xafladan dhagax dhigayno ay beeshinka loo sameeyo cusbitaalka runtii markaan aragnay qiimaha iyo adeegga ay dadku u baahan yihiin laga maarmaan tahay waxaan horta maanta ugu deeqnaa anagu $50,000 ka qayb qaadano dhiska loo sameeyo halkan markii koowaad wax bixinay ma sanadkan qura cusbitaalka aadan sheekha caruurta $15,000 baan ugu deeqnay boodi loo u dhaami doonto cusbitaalkan oo sanadka loo sameeyay $20,000 baan ugu deeqnay waa isla sanadkan marka guud ahaan la isku daray lacagtaas waa $80,000 runtii waxaan u gelinaynaa wadankayga ayaan ka shaqaysanaa faa'iido badan baa naga soo gasha waan amni badan baan ku haysanaa in waxyaabaha dadku wada leeyahay danta guuda in laga qayb qaatana waa laga maarmaan waxbarashadaan ka qayb qaadanaa oo dhul badan baan u dhisnaa wadooyinkan ka qayb qaadanaa abaarahan ka qayb qaadanaa haday yimaadaan macna shirkaddan waa shirkad wadaniya oo ay wada leeyihiin dad tirada loo qiyaasay 1600 oo Soomaaliland dalyo dibadda ku nool ayaa shirkadda oo tale marka runtii marka wadan ka shaqeysanaysana in wadankaaga ilaashato wixii aad ka bixinaysaa bixisaa waa laga maarmaan wax badan oo wadanka loo qabtaa jira in dadkeena u gurmino wax halkaan keena waa in loo gurmado ummadeena wax laga qayb qaato wax kasta oo danta guuda ama social responsibility ama social security qayb lixaadna ka qaadanaa waana mahadnaqay cid kasta oo qayb qaashay markii koowaadna noqon mayso in badan baan soo noqon doonaa insha Allah wixii danta guuda diyaar baan u nahay aad baad maasantiin waa Cabdi Fataax Xasan Xuseen Cabdi Fataax Telefishka caalamiga Somali Channel Hargeysa.